telefoonka ugu waramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan haddaba mid ka mid ah eedeysanayaasha ee wasaaradda amniga ay markaasi soo eedeysay laguna magacaabo Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ayaa VOA da u sheegay in eedeymaha loo haysta ay yihiin kuwa ay siyaasada ka dambayso Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreyn weydiiyay in uu xiran yahay iyo in kale su-aashaas waa adagtaasi aan uga jawaabo sababtoo hadda ma xirni oo xabsi kuma jiro xorna ma ihi oo maaragtay sidaan rabo xorriyadeydii muwaadinnimo maaragtay waa la iga qaaday gurigii ayaan maaragtay xabsi ku ahay aerobortka 3 mar maaragtay iga soo celiyey anoo u socdaa degmada Cadaado oo maaragtay si aan qayb uga noqdo processka nabadda halkaas ka socda oo ah gobolka aan siyaasadda u matalayay markaan aerobortka tagana duqaa ku haysta leeyahay warduqu duqaa ku haysta dastuurkan waddankan meel uga taalo ma jirto dalka dastuur uu leeyahay shaqo uu leeyahay aniga qof muwaadin waan ahay oo siyaasi ah oo dalkan muddo u shaqaynayay dambi waan yeelan karaa waa la eedeyn karaa laakiin waxaa fiican in loo maro sida maaragtay meeshaan waraaqaha lagu wada joogaa waraaqaha sida ku qoran ahayd maaragtay in la maro laakiin meeshan hadda waxaa igala muuqata fashilkii aan madaxweynaha ku eedeynayay oo la igu haystay fashilkii unbaa hadda maaragtay arrintan markhaati usii noqonaysaa laakiin sida war-saxaafadeedka wasaaradda amniga gudaha ku qoran waxaad ka mid tahay dad ka been abuurtay mas-uuliyiinta dowladda islamarkaana isticmaalay magacdooda dhinaca xidhiidhka bulshada oo sumcaddii dowladda wax u dhimay arrintaasi maxaa ka jira arrintaa wax ka jiro male aniga maaragtay nin odaya oo mas-uula oo siyaasi ah oo la yaqaano ayaan maaragtay ahay waxyaabaha iyo waxa lamidana qofay ka suurta galaan maahi laakiin maadaama xafiiska madaxweynuhu fiiri 2 war ayaa dawladdu soo qorto isdiidan xafiiska madaxweynuhu wuxuu soo qoray in aniga la igu haysto inaan amniga dalka khatar ku ahay iyo eedeyntan kaloo hadda ah tan xalay soo baxdana waa ka duwan tahay anigu marka waxaasoo dhan waxaan u arkay 3 arrimood midda koowaad oo aniga magacayga iyo sharafteyda in lagu waxyeeleeyo iyo midda labaad oo ah in la iga hor istaago shaqadii siyaasiga ahaa maadaama anugu nin mucaarada oo xisbi mucaarada ka tirsan siyaasi aan ahay in la iga hor istaago iyo midda saddexaad oo aniga in la igu dhibaateeyo oo maaragtay madaxtooyadu aniga maaragtay igu disho ama si kale igu dhibaateyso 3daas qodob aan u arkaa inay tahay wax maaragtay loogu gogol xaray arrinta kaloo nasiib darrada ah ugu weyn waxa weeye in anoo ilaa iyo hadda 2 asbuuc oo hawshaani socoto oo 3 mar madaxtooyada la igu xiray inaan hadda aeroport 3 mar laga celiyey weli inaana arag warqad ka soo baxda xafiis sharciya oo dowladda Soomaaliya ay leedahay iyadoo saas jirto ayaa haddana nasiib darradii ugu darneed magacayga oo saddexaad oo aniga ah TV-gii dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen oo anigu aan kamid ahay dadka wax kale oo Soomaalida magacayga laga jiidaayay iyadoo maxkamadda xukumin inta oo dhan waxay markhaati fur u tahay sida Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu fashilmay siyaasadda dalka cidda ku soo eedeysay madaxtooyada ma hadda waxa cidda ku soo eedeysay dacwadu idinka dhaxaysa waa wasaaradda amniga gudaha marka maxaad ku eedeynaysaa madaxtooyada saa ma ahan realitigu sidaa ma aha aniga madaxweynaha waa xafiiskiisa igu yeeray waan u tegey wasiiraha nala joogay madaxweynuhu markaan u tegay hanjabaad iyo dhaar ayaa maaragtay iga soo gaartay wixii igu xigtana waxay ahayd in baabuur nabad sugiddu leedahay aniga maaragtay sharafteydii iyo xorriyadeydii ay iga qaadeen meeshii nabad sugidda la igu xiray si dalku noogu dhismo waxaan dhihi lahaa hala ixtiraamo hal waxaan haysanaa waa tahay dastuur waayo war dastuurkaasaan ixtiraamna wada ilaashano waan gartay laakiin cali keligaa ma aha cidda la soo eedeeyey waxaa jira eedeysanayaal kale marka miyay jirtaa wax xidhiidha oo idinka dhexeeya dadkaa kale eedeysan aniga waa fahamsanahay qof kaloo eedeysan male wax oo maaragtay kulamaanin la yidhaahdo waaye oo la rabay in laga dhigo dad shaqo qabtay aniga waxaan aaminsanahay anugu horta aniga teknolojiyada kuma ficni shaksi ahaan inay iga suurta gelin marka laga reebo teknolojiyada kuma ficni laakiin meeshaan hal dhib baa jira si lagu dhibaateeyo afkaartaada siyaasiga oo caalamnimada lagaaga reebo lagu mashquuliyo lagu dilo waa in lagu sameeyaa dembi xitaa Facebook in taliyaha laga been abuuro national issue maaha waa wax shaksiyadeed waayo wadamadan horumaray oo aan ka nimid ruuxoodaan ilaa hadda intaan shuruuc ka lahayn yacni in taliya sirdoon cunug ah magaciisa laga been abuuro yacni ruuxoodaan ahayn maaragtay issue aan ahayn marka nasiib darro waayo
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo kamid ah dad wasaaradda amniga ay ku eedeysay in markaasi ay sameeyeen ama ay ka been abuureen hay-ado iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. Xuseen Barre Aadan ayuu u waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.